بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan rabay caawa fiidnimadan in aan wax yar ka idhaahdo bal haddii uu jiro faraq u dhexeeya qabiilka iyo qabyaaladda luuqa ahaan farqi baa u dhexeeya qabiilku waa ku haybsiga maxay ahayday qabiilo ama koox gooni ah oo sheegata inay wadaagaan isir halka qabyaaladdu ay tahay iskooxaysiga qabiilka asagoo intiisa badan looga doonayo ama looga gol leeyahay in lagu duudsiyo xuquuqaha dadka kale ama lagu gaboodfalo dadka kale ee dariska la ah ama markaasi ay kala dhaxayso cod wadaagtu qabiilka iyo qabyaaladdu Soomaalidu waliba dadkooda inta badan isku daya inay u sameeyaan macna diini ah waxay u kala qaadaan labo oo ah in qabiilku uu wanaagsan yahay qabyaaladuna ay xun tahay waa laga yaabaa inuu taariifkaasi suurtagal yahay laakiin inaga ahaan ka Soomaali ahaan suuragal ma ahan in qabiil iyo qabyaalad la kala qaado oo qabyaaladii jiritaankeedu waxay ku xidhan tahay jiritaanka qabiilka inta qabiil uu jiro qabyaaladu way jiraysaa marka waa in laga tago falsafada nolosha ee ku dhisan qabiilka ama qofi inuu yahay reer hebel ka sokoo intuu yahay Soomaali ethnically waxaynu nahay Soomaali and nationality waxaynu nahay Soomaali وخلاص wax alla wax ka dhaxeeya ma jiraan qabiil iyo qabyaalad hadaba waa inaan isla tuuraa labadooduba inaanu kala qoqobaynin ama kala bixinin waa isku mid ma suuragal ma ahan dhaqankeena iyo taariikhdeena soo jireenka markii la eego in qabiil iyo qabyaalad la kala saaro oo qabiilku intiisa badan qabyaaladdu waxay ku tiirsan tahay qabiilka ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waxa ku tusinaya weeyaan qabiilka iyo qabyaaladdu xogaa in Soomaali ahaan inayna kala saari karin yaa ayuha alladina aamanuu لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون مركا إن dadka qaarkii lagu magacaabo qabiiladooda ama dadka ay yihiin waa dad mataqaanay asal ahaan aan wanaagsaneyn oo magacyo xun lagu magacaabo waxa kee asagoo mataqaanay qabiilkii kala qoloqolayntii la adeegsanayo waxa keenaya wuxuu yahay qabyaaladii intaas ayaan rabinaa idhaahdo caawa waxaan idinka rajaynayaa in falsafadan aan ku dhisnayn qabiilka iyo qabyaaladda aynu qaadan doono si aynu u gaaro horumar iyo aynu u helo dal dhisan oo ku dhisan nabad cadaalad iyo horumar. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.